warmurtiyeed kaliya oo dalka Uganda ka soo saaray musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka Wicid Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa uu kaga hadlay dhibaatooyin uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay u geysato siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadeeda waxaanu sidoo kale uu hambaliyeeyay taageerayaal xooggan oo xisbiga mucaaradka Wicid dhawaan ku soo biiray waxaan warmurtiyeedkan u dhignaa sidani waxaan ugu horeyntii hambaliyeenayaa taageerada xooggan ee ku soo qulqulaysa xisbiga Wicid ee aqoon-yahan waxgarad iyo siyaasiyiin bale waxa hubaala in isbeddelka rajada shacabku ay tahay isbeddel ay ka sugayaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wicid waana la gaari doonaa haddii Allah wada lidmo haddaan hambaliyada xisbiga inta Wicid kaga baxo dhacdooyinka istabajooga ah ee ka dhacaya dalka Soomaaliland waxay muujinayaan in xukuumadda kulmiye ee uu hogaaminayo madaxweyne Silaanyo ay gaadheen guulihii ay tirsanayeen wajigoodii hore oo ahaa inay dabarkii sharciga ay goosteen si ay u hirgalaan in maamulkooda iyo howlgalkoodu ku socdaan xisaabta la'aan lagu fushado qof jeclaysi sababay cadaalad darro danaysi awood xukunka ah iyo maamul xumo iyo musuqmaasuq sida lagu sheegay warmurtiyeedkani ka soo baxay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka Wicid Cabdirashiid Xasan Mataan waxaana warmurtiyeedkani intaasi lagu sii daray shacbiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay waa mahadale in barasaab ku-xigeenkii hore gobolka Tugdheer Guuleed Daahir xorriyadiisa dib loogu soo celiyo balse maxay inoo damaanada in aan taasi dib u dhicin waxaa lagama maarmaan ah ayaa lagu wiri warmurtiyeedkani inagoo mar walba dhowrayna ammaanka iyo nabadgelyada inaynu taxadir badan u yeelano dareenka shacabkana aynu ku muujino sida aynaan diyaar ugu ahayn dhaqamada lidiga kuwa xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta balaayo madax la qabta ayay leedahay ee mijo la qabta male haddii aynaan ka hortagin dadka lala baxo habeenkii saqdiisa dhexe ma hubno dhaqanka ku xigi doona arrintaasi ayaa lagu yiri warmurtiyeedkani waxaana warmurtiyeedkani intaasi lagu sii daray qaabka loola dhaqmay barasaab ku-xigeenkii hore gobolka Tugdheer waa fariin ku socota shacbiga Soomaaliland waana arrin mudan inaynu talo wada jir ah ay ka sameeyaan labada xisbi mucaarad ee Wicid iyo wadani sidii ay talo iyo aragti midaysan oo lagu dhowrayo xuquuqda muwaadiniinta ay uga yeelan lahaayeen arrintaasi war-saxaafadeedkani ayaa lagu soo gabagabeeyay xukuumadda kulmiye waxaan ugu soo koobaya hadalka dardaarankan ah Soomaaliland dariiq fiican bay haysatay waadse ka leexiseene ku soo noqda oo dadka iyo dalka u shaqeeya warmurtiyeedkani oo ka soo baxay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wicid Cabdirashiid Xasan Mataan oo ka soo saaray dalka Uganda ayaa lagu soo gabagabeeyay intaasi